alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for clicking on this video. Welcome to my YouTube channel. This is Lessons with Miss Fatma. And again, I apologize for the inconvenience of Saturday. I got really busy, but now here I am as promised with Tuesday's class. Today we are going to learn verb. And what's the definition of a verb? A verb is an action or state of being in a sentence. Verbs can be expressed depending on when the action is being performed. For example, Jennifer walked to the store. In this sentence, walked is a verb that shows action. But remember, the verb is in past tense. Walaalayaal kusoo dhawaada casharadana. Maanta waxaan baran doonaa verb. Verb waxaa waaye faal ama ficil. Faalku waa faal ama xaalad ku jirta jumlada. Waxaana lagu muujinayaa ama lagu muujin karaa waqtiyooyinka kala duwan iyadoo ku xiran marka faalka la sameynayo. Mithaal ahaan, Jennifer walked to the store. Jennifer waxay u socotay store-ka ama dukaanka. Meeshaas ficilka ama faalka waxaa waaye socodka. Jennifer waa noun, walked waxaa waaye verb. Verbs are sometimes described as action words. This is partly true. Many verbs give the idea of action, of doing something. For example, words like run, fight, do, and walk. These verbs all convey action, but some verbs do not give the idea of action. They give the idea of existence, of state, of being. For example, verbs like be, exist, seem, and belong all convey state or state of being. Marka faalka asaga naftarkiisi marmar wuxuu ku tusaa ficil, hadala ficil inuu yahay. Sidii mithaal ahaan sameyn, orod, dagaalan, shaqee, kulli waa wax oo ficil ku jiro. Qaarna waxay ku saabsan yihiin ahaansho. Mithaal jiritaan, belong iska lehaa, iyo seem muuqansho, muuqaal. Fun fact, you can make a word-one sentence with a verb. For example, stop. That's a full sentence that only contains one word. You cannot make a one-word sentence with any other type, imagine. Waxaan dhahay, waxaad sameyn kartaa jumlad oo kaamil ah oo hal hadal keliya ku dhex jiro. Tusaale ahaan, stop waa jooji. Kelmadooyinka kale ma sameyn karaan jumlad kaamil ayagoo hal hadal ku dhex jiro. Now we will do sentences that have the idea of action and the idea of state. Action: Ram plays football. State: Anthony seems kind. Hadda waxaan tusi ficilada oo ahaanshada ah iyo ficilada oo ficilka ku jiro, faalka ficilka ku jiro. Haye, Ram plays football. Ram wuxuu ciyaaraa kubad. Meeshaas ficil baa ku jiro. Anthony seems kind. Anthony wuxuu naxariis badan yahay. Meeshaas ahaansho, ficil ahaanshaa ku jirto. Most words like adjective, adverbs, prepositions do not change in form, except for nouns sometimes can be singular and plural, but almost all verbs change in form. For example, the verb to work has 5 forms: to work, work, works, worked, and working. Hadallada badankood isma bedelaan, sidii sifada, faalkaabka, iyo meelayaha. Intii ka ahayn magaca noun marmar buu isu bedelaa single ama plural, laakiin faalka ama ficilka badanaa wuu isbedelaa. Tusaale ahaan, ficilka work wuxuu kala noqdaa 5 qaybood: to work, work, works, worked, working. To work inaad shaqeyso, work shaqee, works waa shaqeeyaa, worked waa shaqeyn jire,
working. حتى حالدان aan shaqeynaya. So there are 11 types of verbs: action, stative, transitive, intransitive, linking, helping verbs or auxiliary verbs, modal verbs, regular verbs, irregular verbs, phrasal verbs, and infinitive verbs. One and number 2, we have already spoken about them, so we're going to talk about the others right now. I'll give you more examples of stative verbs: love, want, own, have, resemble. Example of stative verbs in a sentence: the mansion has 5 bedrooms. Ali loves her younger sisters. My car needs an oil change. The verbs here are has, loves, and needs. Notice how none of these verbs refer to actions. Walaalayaal, weli ficiladii ahaanshaan wadnaa, marka waxaan isiinaa mithaalo oo ficiladaas: love, jecel; want, rabitaan; own, wax aa leedahay; have, wax aa haysato; resemble, laba wax isu ekaantaas baa verbka ah. Marka waxaan galaynaa jumlooyin oo ficiladan oo ku dhex jiro. The mansion has 5 bathrooms. Gurigaas 5 musqul baa uu leeyahay. Ali loves her younger sisters. Ali walaalaheed gabdhaha oo ka yaryar way jeceshahay. My car needs an oil change. Gaarigayga saliid in laga bedeluu rabaa. Marka meeshaas ficilada waxaa waaye has, loves, iyo needs. Now we have come to the end of this lesson. Today's class we spoke about verbs, 11 types of verbs, and we mostly spoke about stative and action. We will get into the other verbs in the next class, inshallah. Walaalayaal, maanta laba ficil keliyaan ka hadalnay. 11 waaye. Marka 11kaas waxaan ka sheekeyn doonaa inta soo hartay sabtida dambe inshallah. Marka sukaaye keen inshallah, idinkoo nabad qabo, anigana nabad qabo. Ilaahay khayr han isiiyo. Subscribe igu dadaala, share igu dadaala. Mac salaama.